bayaankan waxaa la dhahaa bayaanka wax ka beddelka bayaanka aasaasidda maamulada degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda deegaanka Soomaalida oo salka ku hayo bayaankii 76 isbaaro 201 maadaama ay maarmaan noqotay wax ka beddel lagu sameeyo bayaanka aasaasidda maamulada degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ee tirsigiisu ahaa 76 201 maadaama farqada koowaad iyo farqada labaad ee qodobka 11 ee bayaanka aasaasidda degmooyinka iyo tuulooyinka deegaanka Soomaalidu uu qeexayo hanaanka qaab dhismeedka deegaanka lagu soo kordhin karo degmo ama tuulo ama mid hore wax lagaga bedeli karo samayn karayo isla markaana ay shardi tahay in ansixinta degmada cusub ama wax ka beddelka degmo hore lagu soo daabaco faafinta rasmiga golaha dhowrkaasetaga sida awdkeed golahan xildhibaanada deegaanka Soomaalida waxa uu golaha fulintu isagoo xirinayo qodobka 43 farqadiisa 49aad ee dastuurka farqadiisa 3aad ee dastuurka dib loo habeeyay dowladda deegaanka Soomaalidu isagoo raacayo bayaankan ayaa la soo diyaariyay bayaankani qodobkiisa koowaad waa ciwaan gaaban sheegay ciwaankaas oo bayaanka wax ka beddelka bayaanka aasaasidda maamulada degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ee tirsigiisu ahaa 76 isbaaro 2001 qodobka labaad waa wax ka beddelka bayaanka aasaasidda maamulada degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda deegaanka Soomaalida ee tirsigiisu yahay inta waxaa taxana tirsi sidaan ogsoonahay ay degmooyinkeenu joogeen 95 sida ku xusan qodobka labaad ee bayaanka tirsigiisu yahay 223 isbaaro 2014 oo ahaa xilligii lagu daray labadii degmo ee u dambeysay degmooyinkeenu waxay taagnaayeen tirsigooda 95 wax bedel waxaa lagu sameeyay inuu bayaanka tirsigiisu yahay inta ay tiradii ahayd marka taxanahaas oo ka bilaabanaya 96 ilaa 109 kala noqonayo degmooyinka la soo kordhiyay ee bayaanka uu soo kordhinayo waxay kala yihiin 96 degmada Daarami 97 degmada Biyada 98 degmada Buladari 99 degmada Garanuugle 100 shaxda Buuhoodle 101 degmada Duuban 102 degmada Caleen 103 degmada Bayaxow 104 degmada Burqayar 105 degmada Xagarmoqor 106 degmada Shaakisa 107 degmada Bacadweyne 108 degmada Goddheere iyo 109 oo ah degmada Cobasha mudanayaal iyo marwooyin qodobka saddexaad wuxuu qeexayaa xuduudda degmooyinka iyadoo laga duulayo daraasad ku habboon xuduudka degmooyinka aan soo sheegnay ee cusub waxaa lagu xeerin doonaa xeerdaameed golaha fulintu soo saari doono qodobka afraad wuxuu xisaabsan yahay muddada dhaqangalka bayaankan wuxuu dhaqangalayaa laga bilaabo maalinta golaha deegaanku ansixiyo laguna soo faafiyo dhowr gaaseta waad mahadsantihiin waxaan ognahay deegaankeenu in uu qaab dhismeedkiisu inta badan uu ka kooban yahay heer deegaan iyo heer degmo iyo maamul magaalooyin waxaan ognahay in soo curinta shuruucda la xidhiidha degmooyinkii waxaas ay iska leedahay hay'adda fulintu maadaama iyagu ay shaqada gacanta ku hayaan baahida deegaanka ka jirtana iyagu ay og yihiin marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in la eego shuruudaha degmooyinka koobal degmadu inay tahay mid dakhli soo saari karta kow in ay dadka meesha degan u yaalaan qaab adeeg bixin lagu siin karo iyadoo qodobada noocaas laga duulayo waxay awood u leeyihiin inay soo xiriyaan marka anu shakhsiyan waxaan qabaa in bayaankaasi golahu wuxuu dood ka keeni karaa ka keeno laakiin maadaama ay golaha fulinta soo fuliyeen inay noo justify gareeyaan oo ay bal ka hadlaan oo laftooda yidhahdaan baahidii iyo sababihii keenay ay
ay yidhaahdaan noo yara faahfaahiyaan kadibna golahu uu dood ka galo aad bal mahadsantiin sida aad ogtihiin degmooyinka deegaanku inta badan waa asaaska miisaaniyadda lagu qaybsado waa asaaska matalaadda deegaanka lagu qaybsado inkastoo ayda qorayn waxay noqonaysaa qaacido ah haddii aadan degmo lahayn ma jirtid oo kale aragti ah inay shacabka ay maskaxdooda ku jirto inkastoo ay ahayd inay sidaa noqonin oo qaabka dadku ay isugu imanayaan ay tahay qaab urursan oo kala duwan oo aan tixgelinaynin in maaragtay dad gaar oo beelihii meel ay degaan inkastay ahaan lahayd haddana waaqiciga dhabta aan ku noolahay waan ka daragsanahay iyo intii halkan fadhida qaabka siyaasadeen ay u samaysan tahay sidaa daraaddeed tan iyo intii dhacay isbeddelku cabashooyin shacab oo ballaaran oo la xidhiidha qaab dhismeedka ayaa la wajahayay cabashooyinkaasi waxay ka yimaadeen sababo la xidhiidha dareen ahaa maannaan helin matalaaddii ama aamuskii maamuul een u baahnayn oo meelaha qaarkood ka jiray garya gardarraba iyo falceli ka dhalatay qaab dhismeedyadii u dambeeyey la sameeyey gaar ahaan qaab dhismeedkii 99 lagu baabi'iyey kii ka horreeyey xukuumaddii laga horreysay keliya ma ahayn wixii samaynayay qaab dhismeed taariikhdii deegaanku intuu jiray dadkii soo maamulayey tanaasulaad ay isu sameeyaan ha ku xidhnaato ama ha ku xidhnaato daraasaad wuxuunba dhisayeen waxaa la dhisayey dhammaantii wuu khaldanaa aragti ah xukuumaddani ma qabto cid gaara ayuu waxaas u exatay aragti ana ma qabto laakiin waxaa xaqiiqo ah in kolkii dowladdii hore ay maalmihii u dambeysay isbeddelka inay isku dayday inay ka jawaabto baahiyo sidan oo kale iyaduna ka soo noqday qaabkii wax u samaysay taa oo ku kaliftay in 99 degmo iyo 25 maamul magaalo lagu dhawaaqo waxay ahayd jawaab la siinayey qaabi ahaan cabashooyin laga garaabay oo shacabkii maadaama wax la raacay oo criteria ayna jirin cid walibana ay cabasho la soo baxday ay shacabkii ay yidhaahdeen maxaa anaga nalooga tegey meelaha qaarkood waxaan is leeyahay inkastoona xilligaa ka warqabin wixii lagu saleeyey 99kii inay uu la xidhiidhay ka garow meelaha qaarkood tabashooyinka ka yimid ay sax yihiin iyo duruufihii markaa jiray ee siyaasadeed oo laga yaabo xukuumaddu inay xamili weyday xukuumaddii inay su-aalaha ay si cilmiyeysan uga jawaabto taasoo keentay in si habqana looga jawaabo la yidhaahdo 99 degmaan samaynaynaa iyadoo aynu ogeyn wixii kolkii nimid isbeddelka aynu ugu nimid waxaan aragtiyaha waxaa jirtay waxaas inayn ahaan wax dhab ah inay ahayd wax ulakac maaragtay loo samaynayey si deegaanku u fowdoobo oo wax la maamulaba la waayo aragti ah la wey jirtay ma xaqiijin karno laakiin waa odoro siyaasadeed oo ku xisaabtamaya ma suurtagal baa in waxaas oo maamula hal mar la howlgeliyo waxaa kaloo dhashay aragti degmooyinka qaabkii loo sameynaya ka timid oo ahayd in haddii aadan dhul cabir go-aan leh oo yar degmo noqon kara wax la yidhaah haddaadan lahayn inaan degmo aadan helayn taasoo keentay in miyigii la qardeeyo reerihii islaayaan hadda xisaabtanka dadku uu yahay 30 kilomitir ama 40 kilomitir baan u baahanahay meeshii tuulo aba si aan u codsado degmo waxaa kaloo timid 30 kilomitir si loo helo isqabqabsi iyo in la saxbadeeyo la isqabsado ayaa timid waxaa timid in noloshii magaalada oo aan taaba gelin miyigii lagu ururo oo miyigii si habqana kolba meel loo qardaynayo resourcigii lahayada uu sii firdhayo oo aan lahaynin magaalooyin muuqda oo nolol ka muuqato laakiin miisaaniyad aad u fara badan oo 40% ay gelayso meelihii degmooyinka ahaa sanad ka sanadna kolalka qaarkood inaad aragto mooye mashaaric yaroo kooban meelaha laga qabanayo mooye lacagta u dhiganta 40% ugu yaraan 50% badow baa la odhan karaa
wax yar ka yar wax muuqdo oo ama magaaleyn ama nolosha dadka inay ka muuqanin arrimahaas waxay keeneen in la fikiro iyo baahiyo shacabka sheegay horay see wuxuu wajahnaa in la yidhaah marka waxaa la qaatay istaraatiijiyad ah kow la soo ururiyo dadka waa sababta keentay in ugu yaraan 4 magaalo lagu dhawaaqo way badan yihiin waa la ogyahay deegaanada kale khibradoodu waxaa weeye boqolaal bay leeyihiin inkastoo kuwa heer deegaan ku maamulaan ay kooban yihiin oo shuruud ay u dhigaan inagu maynaan gaadhin laakiin waxaa jira darajooyin ay leeyihiin oo kala duwan talaba magaalada Adaamo oo kale iyo Jimma iyo doo magaalooyin waaweyn oo caasimada weeyo caasimadda asaba aan wax ka dhicinba kuwa kale waxay leeyihiin dhaqan soo jireena oo ismaamul ah facility ba haystaan aqoonti ba haystaan laakiin xagga dakhliga iyo in la ogaa in tabartooda la sii xoojiyo waxa loo hoos keenaa inta badan deegaanka oo kale kuwan see laga yeelaya arinta maadaama xogtani ay muhiim tahay inuu baarlamaanka ogaado inkasta oo mandate-ka dhankeeda golaha fulintu uu leeyahay meelahaas sida sharciga loo yaala waa la go'aamin doonaa laakiin hadda sharciga loo yaala waxa weeye magaalada darajada Regia Bolis leeyahay koowaad labaad iyo saddexaad inay hoos imanayaan heer deegaan kuwa hadda la soo gudbiyana waa kuwa shuruudahaas loo raacay way jiraan meelo si gaar ah tixgelin loo sameeyay waxaas oo dhan inuu eegayna waxaa la isla qaatay in qaab dhismeedka magaalooyinka la kordhiyo dadka la soo ururiyo shaqaale magaalada ka shaqeeya magaaleeya loo diro dakhli ay soo saaraan ismaamulaan go'aankaas waxaa baba socday in iyana la sameeyo degmooyin dheeraada waxa markaa la isweydiin karaa haddii dadkii la soo ururinayo oo magaalo lagu soo ururinayo haddana dhinaci kale degmooyin la sii samaynayo miyayna ahayn wax iskhilaafaya theoretically waa iskhilaafayaan oo dadkii waan soo ururinaya magaalooyin degmooyin waa bixinaynaa waxaa laga yaabaa in loo arko wax iskhilaafsan laakiin siyaasiyan ahaan waxaynu ognahay tabashooyinka shacabka ay jiray iyo matalaadda dhankeeda in maaragtay wax badan ay jiraan deegaankani maanta wuxuu u baahan yahay midnimo Soomaaliyeed caqabadaha geeska ka jira iyo kuwa maxalligaaba waxa lagu wajihi karaa in si midaysan loo wajiho danaha istaraatiijiyadda sakow cadaaladda afaraysa qof kasta oo mas'uula inuu ka garaabo waxa khaldan ee jira kala jawaabo iyadoo taa laga duulaya lagu soo saleeyay way u bannaan tahay golaha inuu ka faalloodo meelaha la soo gudbiyey hadday jiraan meelo loo arko inayna mudnayn hadday jiraan meelo garooshaha uu ka bixiyey golaha fulintu uu ku khaldan yahay way u bannaan tahay golaha inuu si xor uga doodo go'aanka ansixinta ee degmooyinkana kolley golahana leh waxaa kaloo jira xog ahaan in iyadana loo baahday in gobollada qaarkood adeegii loo dhaweeyey dadka gobolladaas waxaa lagu xushay tirada populationka ay leeyihiin oo ballaadhan iyo baaxadda dhulka ay maamulaan waxaa laga maarmaan noqotay in la sameeyo sababtoo ah qaab dhismeedyadu waxaa loo sameeyaa ma aha inay weligood jiraan waxaa loo sameeyaa inay ka jawaabaan baahi jirto maamulo markaa jirta baahidii maamul ee deegaankeena markii la aasaasayey waxay ku bilaabatay in loo baahday 9 gobol 30 sano kadib waa la ogyahay in 11 gobol populationka ay maamulayeen sanado ka hor ka badan hadda inuu nool yihiin qaab dhismeedkaasi markaa wuxuu caawinayaa adeegii dadka in la gaarsiiyo kormeerkii degmooyinkan kor loo qaado ka warhayntii in maaragtay ay hagaagto dakhli lacag fara badan iyo kharash naga baxayeen babadna sababtoo ah qaab dhismeedka zoonku ama gobolku waa wax aad u kooban 10 qof meelahaas weeye dhanka kale haddii laga eego oo la yidhaha 10 laftigooda waa kharash waa shaqo abuur iyaduna dhanka kale oo hogaamin soo baxda oo shaqaysa oo jaamacadaha ka soo baxda soo gelisa marka baahidaasi inay jirto aragtida baa jirtay oo golaha isla qaatay ma sahlanayn doodaha meesha ka dhacay iyadoo taa la eegayo waxaa jira gobollo la go'aamiyey in la qaybiyo oo duruufaha aan ka hadlay lagu saleeyey gobolladaas kuwa ka soo hadhay xaaladoodu maxay tahay haddii la yidhaah waa laga dooday
duruufo fara badan iyadoo la eegayo isku haynta dadka ogolaanshaha dadka rabitaanka dadka miyay rabaan waxan ma rabaan hadday rabin maxay inagu dusaaraynaa arrimaha noocaas iyadoo laga eegayo kuwa dib loo dhigay baa jira oo laga bal aan sii daraasayn waxaan ognahay maalmahan shalay iyo daraad guuxa ugu badan ee golaha baarlamaanka ka jiray wuxuu ahaa gobol hebel isagana maxaa loo sarif waayey waa la soconaa meelaha qaarkoodna wuxuu ahaa gobollada maxaa loo taabanaya wax qarsoon ma ahayn taa waxay caddaynaysaa in baahida maamul sida hadda la yahay malaha si ka fiican in dadkii loogu adeego waxaa loo baahan yahay qaab dhismeed cusub oo gobol inay tahay mid dhaba ayna ahayn mid ka timid hogaaminta sare keliya fariimaha naloo soo dirayey badankoodu waxay la xidhiidheen maxaa gobolkan ayuu ku dhacay dhanka kalena maxaaba loo geliyaa kuwa lahaa way jireen waxaa iyadnoo jirtay muddo 7 sano ah meel walba oo booqasho loo tago madaxdu su'aalaha ka imanayay waxay ahaayeen waxaasaan mudannahay maxaa naloo siin layahay isku baahi dadku ma aha maanta oo halkan joogno oo maalin taariikhi ah aragti fara badan oo kala duwan hala qaato laakiin aan aaminsanahay in go'aan masiiriyo halkan ka dhici doono waxaa jira dad lahaa waxaanu istaahilnaa baaxadda dhulka aanu degannahay iyo ka fogaanshaha xarumaha gobollada awgeed in nala siiyo in naloo soo dhoweeyo xaruntii gobolka waxaa jira dad lahaa degmooyin baa naga maqan waxaa jira kuwo saacaddan taagannahay weli codsanaya sentarro in loo ogolaado sentarro ma aha degmooyin oo deegaanka ka tirsan oo u arki lahaa maanta in gobol la siiyey haddii sentar loo ogolaado waxa noocaas oo jira lama odhan karo midnimo soomaaliyeed baa laga abuuri karaa deegaankan waxaa walaalayaal maanta aan ognahay naareeshinada siyaasadeed ee ka jira deegaankeennu waa kuwo ku salaysan nacayb iyo polarization far isku fiiq reer hebel baa intaa helay waxay ka muuqataa markaan samaynayna degmooyinka sida marka dad aan hore u haysan degmo xabad loogu daro dadkii haystay ay u odhanayaan balansigii baa xumaaday mar haddii reer hebel hal loogu daray annagana waxna loogu daraa si balansigu balansiba mise waa hegemony muxuu ku haysashaa mise waa balansi arrimaha noocaas oo dhan way jiraan haddana waa wajihi doonaa insha allah kolley golahan ay u taallaa go'aanku annaga saasay nolo noqotay dadka la siiyey degmooyinka maantaan eegi doonnaaye inay yihiin dad halis gelinaya balansiga siyaasadeed ee ka jira deegaanka in kale golahan u yaallaa in burqayar la siiyo degmo halista siyaasadeed ay abuuraysaa maxay tahay in beelaha la takooro ee deegaanka 20 wiil u shaqeeya oo xafiisyada taga ay yeeshaan oo miisaaniyad ka qayb gala ee Soomaaliyeed halista siyaasadeed ee deegaanka ay ku keenaysaa waa muxuu yahay in dadka xuduudaha jooga ee 50 sanadood dalka ka tirsan ee adeeguna gaadin arag amni ee leed aqoonin la gaarsiiyo koronto iyo biyo iyo ambulance balansiga siyaasadeed ee deegaanka halista ay ku tahay muxuu yahay aragtida odhanaysa balansi siyaasadeed baa halis ku jira oo ahayd lagu aasaasay dareenka diidmada ee la abaabulayay maalmahan ee xubno ka mida golaha dawladdu laftigooda ay si cad uga qayb qaadanayeen waa midaan loo adkaysan karin waa mid baahan la wajaho sababtoo ah ma sii socon karto dareenka nacaybka ah ee siyaasadda abuurantay 30 sano ka hor ee deegaanka waa in meel ku xidhantaa aragti laba aragti baad ku hardamaya deegaanka aragti xag jir qabiil iyo aragti soomaalinimo mid walba midka kale uu necab yahay uu dhaleeceeyaa laakiin waa maalinkii la kala dooran lahaa labadaa waddamadkii la raacayo golahan baarlamaanka waxaa u yaalla su'aal damiireed oo ah dadkaa la yeedhin doono ma mudan yihiin mise ma mudna kuwo kale ma ka maqan yihiin haa laakiin qaabkii loo weyey kuwo kalaa maqan waxay ahayd qaab ujeeddadeedu ahayd 99 degmo inta lala yimaado halkan in la fawdeeyo oo la laabo kuwa mudan iyadoo kuwa laleeyahay ma lagu daro ay yihiin kuwo qaarkood haysta waxaa laga hadlay wuxuu ahaa kuwa wax ka maqan yihiin aynu ognahay wax siino
waxaan soo qaadan karaa degmada ceelkarre xilliga xilli salaase iyo xilligii dhargeennida ahayd ma garanayo waxay ahayd gobol tusaale ahaan dad ka soo jeeda halkan way fadhiyaan maanta waa degmo 30 sano wax ka go'ay ma jiro shacabka halkaa joogaa intay bateen caruurtoodii in kuwa la soo dhoweeyo oo maamulka lagu daro shaqaabuur u noqoto adeegu gaadho halista siyaasadeed ee ku keenaysa deegaanka iyo beesha ay halista ku tahay waayo arrimaha noocaasa waxaan rabaa in golahan si fiican uga doodo waxaan aaminsanahay inaan go'aan fiican qaadanay go'aan cadaaladeed go'aan damiireed inaan qaadan aaminsanahay waxaan aaminsanahay dhaleecaynta naga soo gaaraysa go'aankaasi inaan ku ilooweyno oo maaragtay aan kaga samrayno wanaagga ay soo celin doonaan dadkaas loo hiiliyey ee yilka u baanaan walaalayaal saasaa lagu sameeyey degmooyinkaas maamuladaas saasaa lagu sameeyey israaraacinta gobollada waxaa laga duulay gobolladu sidii ay ahaayeen ee hore unbaa laga duulayaa intii aan kala go'in gobolladaas criteria in la raaco weeyaan intii aan kala go'in gobolladaas intee mudan oo populationkooda iyo distancegu hadda u saamaxaya intee u baahan ka fiirsasho tusaale hadda waad soo qaadi doontaan waa ka soo hordhacayaas gobolka doolo maxaa loo kala jebin waayey maanaan hubin rabitaanka shacabka inuu yahay rabitaanka shacabka yaa ogaaday baa la isweydiin karaa hogaaminta halkan fadhida unbaan weydiinayna golaha dadka halkan fadhiyaa waxay matelayaan shacabka ka soo jeeda gobollada xaafadxaabanta loo tago loo weydiin maayo odayaasha dhaqanka aqoon-yahanku waxay ka soo jeedaan halka meelaha sida cad u rabay in maamullada loo qaybiyo waxay ahaayeen gobollo caddeeyey sababtooda wax khilaafo ka imanayaan una jirin gobollo ilaa hadda iskhilaafsan baa jira oo qaabkay isu raacraacayaan ku murmaya caasimadda ku murmaya baalaansiga ku murmaya yaa jira kuwa oo kale in dib loo dhigo la daraaseeyo yaa go-aan laga gaadhay aragtida ah korka uu laga soo maagay oo ma jirto saa daraaddeed iyadoo taa laga duulaya waxaa la go'aamiyey golaha fulintu in qaab dhismeed cusub oo deegaanka lagu maamulo uu sameeyo kaasna lagu howlgalo iyadoo waxyaabihii su-aalaha ku saabsan farsamada la eegayo waxaan isla ognahay haddii la yidhaha maxaa lagu saleeyey shuruud inay ku soo dhammaanayso waxaa lagu saleeyey shuruudo basic ah population tirada dadka distansiga uu ka kooban yahay su-aalaha shacabka ma yihiin rabitaanka shacabka ma yihiin baahi taagan ma tahay laakiin shuruud kasta oo maamul lagu dhisayo aakhirka waxay ku dambaynaysaa political bargain aakhirka waxay ku dambaynaysaa wadaxaajood siyaasadeed ay ku dhammaanaysaa technical process ma aha maamul samayntu inaad gobol samayso inaad degmo samayso ma aha technical process tusaale dalkan ka tirsanaya Ethiopia wuxuu leeyahay 12 kilil baan sii maraynaa ama deegaan ka mida deegaanadu waa ilaa 40 milyan deegaan ka mida deegaanadu waa 200,000 deegaanka Hararida deegaan ka mida deegaanadu waa 1 milyan waa Gambela ka yar deegaan ka mida dad ilaa 5 milyan oo deegaan ahna way jiraan process siyaasadeed weeye kolka cidda joogta go'aanaysa waxaa lagu go'aamiyaa judgmentiga halka cidda joogta maalinka wixii la qumanaada kolka ay ka tagaan ciddaasna cidda ka dambaysa waxay ka khaladay ka saxda ama ay ku dhaleecaysaa ama ay ku ammaantaa markaas arrinta ah shuruudo cad ma la helayaa waxaa kaloo hubaala qaab dhismeedkii la dhisay 30 sano ka hor markaa ay taranka dadkeenna inuu ciidu ku jiro haddaad guursato hal qol baa idinku filan 2 sano marka la joogo hadday 2 carruur dhashaan waxaa loo baahanayaa qol labaad ay tagaan guuxayna waalaya ee deegaankeena ka jira ee qabiilka ah mayna keenin dimuqraadiyaddu furfurkaashaha siyaasaddu muuna keenin waxaa keenay qaab dhismeedkii ku habboonaa dynamiga isbedele ee shacab qaab dhismeedkii la socon lahaa ayaan jirin waxaa guuxa wada waa elite shacabkii caadiga beeraleyda maaha waa hormoodkii bulshada oo raadinaya fursado maamul oo raadinaya fursado shaqo weeyaan waxaa waajiba markaa in laga jawaabo arrimaha noocaas arrimahaas ayaa ku salaysan tahay
طبعا dareenno kuwa aan ahayn oo kale oo barbar socdo abaab kamid ah way iska jirayaan laakiin wax kasta oo la bilaabo iyo wax kasta oo laga hadlo resistance ugu jiraya magaalada Paris ee Faransiiska markii la yiri waxa la yiri sameeynaya dhulka hoostiisa tareennada mara mudaaraad baa ka dhacay mar rabno dhulka la qodaya hawo lama helayo bal waalidal keena eega wala laha fikrada saxda oo dhan kolka hore taageero ballaaran bay haystaan lama oran karo often times waa fikro waali u muuqda inta badan waxa waajib laakiin in fikrada saxda ah ee ummadda isku wadaya lagu dhiirado lana soo dhigo goobo kasta iyo meel kasta oo la taga hogaaminta kala duwan maaha kaliya hogaaminta sare golaha fulinta kaliya maaha golaha xildhibaanada ee sharafta leh markay bulshada la kulmaan tabashooyin maamul oo ka bilaabanaya tuulo degmo maamul magaalo iyo gobol baa soo jeedinayay muddo badan waxaan la helnay waqti aan qaadana aan u sabirna wixii tabashooyin ay jiraan qaab ku haboon in looga jawaab fiican baan qabnay muddo 7 sano ah dadka markay su'aalo soo jeediyaan tabashadii laga jawaab waa lagu qasban yahay mar walba ballanqaadka in laga garaabo waa sax la dhahay laakiin laga jawaab waaye damiirka bini'aadamka ma fiicna dawladnimadana ma fiicna xisbi ahaanna ma fiicna wixii tabashooyin laga garaabay in laga jawaab sax tahay baa quman baan qaadanay in badan waxaan u ololeynay in magaaleynta xoogga la saaro dadka firsan la ururiya adeega magaalooyin ugu kooba ku haboon ayaan aaminsanayn fikirkaana waan ku dhaganayn talaabooyin kooban oo aan ku ogaan karna intee magaalaan leenahay deegaankeena daraasado kooban oo la sameeyay way jireen walow haddana dadkii aan lagu wada qancin wax kasta oo daraasado la soo wada qancin haddana meel laga duuli karo way jirtay nin walbana tabashadu qaba meesha ay kaga haboontahay buu ka soo jeedinayay in caasimada gobolada ka dooda nin magaalo weyn ku dooda nin baaxad ku dooda nin tiradad ku dooda su'aasho soo jeedinayay nagoo taa ka duulayna xilli badan soo joognay 7 sano soo joognay dadkan inta badan balaqaadkooda ka garaabeynay waxaan isla garanay bal at least waxaan ka midaysanahay in laga garaabo quman ban iyo isla garanay si xisbiyaha waxaan ka bilownay guddiga xiriirinta dood dheer baan ka galnay miyaa loo baahan yahay mise looma baahna tabashooyinka bulshada qabina ka jawaabna ma loo baahan yahay mise looma baahna waxay noo soo baxday haboonta in laga jawaabo qaab dhismeedkana laga wada hadlo laga doodo waqti badan la geliyo hogaaminta golaha halkan fadhida hadda qaar mas'uuliyiin hadda xil dawladda ku magacaaban xisbi ku magacaaban iyo ku golaha fadhiyada waxay ka markhaati yihiin 5-6 sano ka hor inaan ka wada hadalnay xilli aan SPP aan ahayn SPP aan gudubnay nagoo guddi fulin aan ka wada hadalnay magaalooyin in la sameeyo deegaanka tira 28 magaalo iyo nala gaadhay xilliga dib baan u dhignay 28 magaalo ugu baahan tahay bal aan ka fiirsanna waqti aan qaadanayno isku ogeyn tiraba 5 iyo 6 jeer baan ka wada hadalnay xilliga aan guddi fulin ahayn ilaa ay hogaaminta heer federaal aan ka qayb gelinay doonta oo galaba jirtay muddo inta leeg waxaan ku soo jirnay in qaab dhismeedka tabashooyinkiisa laga jawaabo guddi xiriiraan markaas la garanay kadib in laga jawaabo tabashooyinka gobolada soo madaxweynaha uu sheegay gobolada tashi badan oo sameynay waxaa fikrado badan soo baxay gobolada aan kala gunhala kala gooyay waan ka doonnay haddana tashi baan sameynay hogaaminta qaybo ka mid ahna waan la hadalnay waxay noo soo baxday 4 gobol kaliya in hadda waqti xadarkan in la kala gooyay ay hogaaminta ka soo jeedana ay ka midaysan yihiin ka fogaanshaha xarumaha gobolada iyo adeegana ay ku haboon yihiin man isla garanay maamul magaalooyinka daraasaadkan sameynay marka laga taga meelaha consideration kooban aan siinay waxaan isleeyahay 185 ka badan fikirka xafiiska maamulka magaalooyinka aan daraasaad ku dana ka imaaday baan ku saleynay meelaha aan tixgelin gaar ah siinay way jirtaa meelo daraasaadka ku soo baxay oo dib u dhignin way jirtaa kana wata ka duulayna wada hadalkii isku wadka bulshada daraasaadka aan sameynay 24 maamul magaalo aan isla galnay guddi xiriirin ahaan iyo degmooyinka hadda uu soo jeediyay madaxfiiska xafiiska ilaalinta mudane naaji iyo 4 gobol kadib guddi xiriirin markaan ku dhameynay kadib golaha fulinta aan geynay golaha fulinta aan hor dhignay golaha fulinta waxa awoodooda ku saabsan ee maamul magaalooyinka ahna waan ka doodnay sida bayaanada wala sharci yaqaanada ay sheegi doonaan awoodda ansixinta maamul magaalooyinka waxa iska leh sida bayaan ku cad golaha fulinta 24 maamul magaalada golaha fulinta san kaga ansixinay
degmooyinka la soo jeediyey waxaan isla garanay in awoodda waxaa iska leh golaha sharci dejinta in la hor keena si guud laakiin xogtan inaan la wadaagna ay munaasab tahay golaha xildhibaanada aan aaminsanay saas u soo jeedinay arrinta degmooyinka meelaha laga dhigay cid walba way garanaysaa degmooyinka meelaha ka go-aanna way garanayaan siduu wasiirnadu soo jeedin weli waa inta badan waa xuduudda deegaanadan dariska nahay baa qayb ka mid ah iyo xuduudda dalalka aan jaarka nahay Soomaaliya ee meelo kooban oo saa u badnayn wey laakiin inta badan waxay ku sugan yihiin xuduudda xogtana golaha xildhibaanada siyaabo kala duwan waa loo hayaa waana sida hadda loo soo jeediyey innaga processka waan soo marnay xisbiyaanna xaggaas aan ka egnay golaha xildhibaanada sharafta waxaan ka codsanaynaa wixii dood iyo fikirna aan ka galna awoodda ansixinta degmooyinkan iyagaa iskale inay noo ansixiyaan waan soo jeedinaynaa golaha fulintan awoodda maamul magaalooyinka ay lahay waan ka ansixinay xagga gobollada wixii sharciyadda waxaa ka hadlo sharci yaqaanada gobolladeenna xagga sharciyadda marka laga fiiriyey waa degmo iyo heer deegaano wey waad mahadsantihin asalaamu calaykum